السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن halkan maanta cashar baynu ku diyaarinay casharkan wuxuu ka hadlay waxa weeyaan professional report writing professional report writing inta badan qaabka wax loo qoro dhammaantii waynu wada ogsoonahay oo qof kasta iyo arday kasta hadduu jaamacad dhigtay iyo hadduu meelo kala dhigtay iyo hadduu qof shaqo waxayaba yahay ama goob ka shaqeeya qaab baa jira wax loo qoro marka had iyo jeer dadku waxa caqabado kala kulmaan qaabka wax loo qoro marka iminka halkan waxaanu ku diyaari doonaa bal qaabka wax loo qoro siyaabo kala duwan ayaa wax loo qoraa marka qaabka wax loo qoro ayaynu qaybo kala duwan ka diyaarin doonaa inaga oo iminka intan hordhac uga dhignay marka koowaad professional kelmadda professional iyo kelmadda skills maxay ku kala duwan yihiin halka waxa ka muuqda waxa weeyaan kelmadda professional ayaa halka ka muuqata halkan waxa ka muuqda kelmadda ugu dambaysa skills ayaa halkan ka muuqata marka maxay labadan kelmadood ku kala duwan yihiin maxay ku kala duwan yihiin labada kelmadood maxay ku kala duwan yihiin had iyo jeer waxaad maqashaa hebel xirfad buu leeyahay tusaale ahaan waxaad maqashaa oo kale hebel xirfad buu leeyahay oo wuxuu xirfad u leeyahay qaabka dharka loo talo tusaale ahaan qof kasta wuxuu xirfad u leeyahay qaabka dharka loo talo haddaynu eegno tusaale ahaan haddaynu ka bixino haddana waxaad arkaysaa hebel wuxuu si khaasa xirfad ugu sii leeyahay qaabka dharka loo talo ciidamada jananka ciidanka sida loo talo darayskiisa ayuu hebel professional ku yahay markaa dadkii way ka wada sameeyeen tusaale ahaan haddaynu kasoo qaadno dhowr qof way ka siman yihiin qaabka wax loo talo ama dharka loo talo laakiin haddana waxay kusii kala professionalsan yihiin qaabka loo talo dharka kala duwan haddaba qaabka wax loo qoro dadku way ka siman yihiin dadku way ka wada siman yihiin qof kasta oo jooga goob shaqo amba macallin ha noqdo amba ha noqdo arday ha noqdo amba ha noqdo qof u shaqeynaya institution amba company ama meelo kale qaabka wax loo qoro ka siman yihiin haddana waxa lagu sii kala duwan yahay oo lagu sii kala xariifsan yahay qaabka wax loo qorayo tusaale ahaan haddii had iyo jeer dadku waxa dhacday inay wax qoraan markuu qofku qorayo qoraal uu sameynayo report uu sameynayo waxaa laga yaabaa reportkuu qoray uu diyaariyey uu si fiican u habeeyey inaanu halkii loogu talagalay amba ujeedadii loo qorayay aanu gaadhin ujeedo kaleba u qoro laakiin waxa muhiim ah qofku inuu xirfad u yeesho qaabka wax loo qorayo professional report writing waxa weeyaan tusaale ahaan documentary markuu documentary qorayo kale uu gaarsiinayo meel specific si gaara waa inuu uga hadlaa information uu xogta gudbiya about topic ku saabsan uu doonayo inuu la wadaago xogtii sidoo kale waa inuu reportkaas noqdaa mid uu skills u leeyahay cilmigii uu leeyahay successful si fiican ugu guuleysto tusaale ahaan waa inuu qofkii si fiican ugu guuleysto xogtii uu gudbinayay waa inuu cilmi u leeyahay waa inuu reportkaasi si toosa u abaaraya meeshii uu doonayay inuu ka hadlo amba doonayay inuu u qoro waa inuu magaranaysaa si toosa u abaaraa haddaba waxyaabo kala duwan ee qofka ka caawinaya inuu professional ku noqdo waxaa ka mid ah inuu yaqaano luqadii Englishta tusaale ahaan grammarka waa inuu qofku aad u yaqaanaa grammarka markaad aad u taqaano waxa uu kaa caawinayaa grammarkaasi inaad si professional wax u qorto meel where looga baahnaaba r ka dhigaysaa meel is looga baahnaaba it ka dhigi kartaa markaa erayadan iskala weydaarinaya grammar error-kan dhacaya wuxuu caqabad ku keeni karaaba inuu qofkii si qaldan intuu akhriyo uu ereygiina si qaldan u turjunto deetana uu noqdo reportkii aad doonaysa inaad qorto inuu report qaldanba noqdo tusaale ahaan aad ka hadlaysiiba report ka sheekeynaya water and sanitation amba tusaale ahaan aad ka hadashay climate change ayaaba doonaysa inaad report ka qorto weliba specific location meel gaara amba meel xadidan oo gaara ka hadlaysa tusaalaha meel cimiladeedu kulushay ama meel ma garanaysaa cimiladeedu qabowday ama meel cimiladeedu dhexdhexaadtay ayaad ka qoraysaa waa inaad intaa aad ka qorayso aanu topicaaga ka hadal iyo ma garanaysaa environmentiga aad maalintaa ka qorayso iyo ujeedada doonaysa inaad ka gudbiso ka waran hadday kaa gasho meel kale wuxuu noqonayaa reportkii amba wuxuu noqonayaa documentary-ga aad doonaysa inaad ka qorto mid qaldan buu noqonayaa halkan qeexitaankiisa kusoo qornay what is the report waa maxay reportku muxuu yahay reportku waxa weeyaan essay buu noqon karaa
wuxuu noqon karaa ma garanaysaa report caadi ah oo la qorayo oo loo qorayo company, tusaale ahaan inaad company amba business oo kale aad ka qorto. Wuxuu noqon karaa adigoo planning meel aad qorsheynayso amba preparation planning inaad ka qorto. Wuxuu kaloo noqon karaa waxyaabo ku muhiim ah oo doonayso inaad koorsooyin amba waxyaabo doonayso inaad report ka diyaariso aad doonayso inaad qorto. Marka way badan yihiin report markaad qoraysaa waxyaabo badan baa report ka qori kartaa. Proposal-kii baa soo gelayo qori kartaa oo report-ka ka mid ah. Waxaa ka mid ah business inaad u qorto report-yooyin u gudbiso. Waxaa ka mid ah goobo shaqo oo kale company-yo inaad report-yo kala duwan u gudbiso. Markaa dhammaan wuxuu noqonayaa inaad professional ku noqoto qaabkii aad u qoraysay laakiin aad xirfad aad u sarreysa aad u yeelato ayaa loo baahan yahay markaad diyaarinayso report. Marka waa xirfad amba waa skills qaabka wax loo qoro aad ku baranayso weeyaan. Markaa waxaa report-ka ka mid ah marka koowaad inaad titles-kii aad ma garanaysaa u samayso, inaad table of contacts ku samayso, inaad summarize garayso, inaad introduction-kii, body-gii, conclusion-kii, recommendation-kii, appendix-kii, dhammaan waxaasoo dhan inaad ma garanaysaa u samayso marka report-ka qorayso. Marka insha Allah bismillahi karim intaasaan kusoo koobaynaa. Waxaynu qori doonaa report-yo badan oo kala duwan hadday report business tahay, hadday report invoice tahay, hadday report proposal tahay. Marka insha Allah inta waynu kasii badan doonaa oo waynu soo gelin doonaa clip-ka iyadoo report-yadu qoran yihiin ayaynu insha Allah soo duubi doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.